ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 18aad waa makhluuq walba waan u naxariisanaa. Bar ilmahaaga oo waqti si aad u barto naxariistu waxay tahay. Tusaale ahaan, waxaad dhihi kartaa raxmadu waxay ka dhigan tahay inaad u naxariisato dadka kale iyo xayawaankaba. Dadka naxariista lihi waxay ka fikiraan qofka kale dareenkiisa iyo mid iyaga u gaar ah. Ajarkooda waxay ka sugaan Ilaahay. Ilaahayna uu u naxariistaa dadka naxariista badan. Ogow, waxaad tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخلوق والبر ونحرسنا. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba. Si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.